السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeeni ahaa tusinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiini ismahan khaliif cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh qalbada uroon masha Allah wax ka bedeli kara. kusoo dhawaada walaalahay qaaliga ahow, channelkan waa dhiirigelin horumarinta nafsada, daryeelka qoyska, badbaadinta ubadka, masha Allah, daryeelka ragga, daryeelka dumarka, daryeelka ciyaalka. waxaan halkan ka baranaynaa kor u qaadida nafsada, barnaamijka dhakhtarka qalbiga ku xirnaada. casharada aad ay u fara badan yihiin masha Allah, yaan idin daalin. balanteenuna maxay ahayd? wanaag. balanteenuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa. kusoo dhawaada mar kale. maanta se ismahan khaliif maxay idin sidaa? maanta waxaa idiin sidaa aan idinkugu soo celiya cashirkayga labaad. agteyda qaaliga ka ah qof kastoo muslimo qiimo nolosha la lehne oo agtiisa qiimo ka leeda oo islaame wuxuu ahaa qaybta labaad. baro oo bar xikmada. yaa maxaad u barataa xikmada? xikmada waxaa u baranaysaa adiga ayaa nafsadaada ku daryeelaysid, horumar ayaa adduunka ku gaaraysaa, ilaahay ayaa kugu badbaadinayo. maxaa yeelay qofka markuu xikmadda hadduusan baran ama uu ilaahayba hadiyad u siinin xikmadda, dadka qaar ilaaha ugu deeqay ayuu raadin, nasiib ayay heleen ilaaha ugu deeqay. laakiin qofka kale waa inuu bartaa, waa inuu gartaa waxyaabaha oo xikmadda ya waxyaabaha oo xikmadda sida loo baranayo iyo waxyaabaha ay tahay. markii adiga baratid nafsadaada ay ku dhaqminaysaa, kadibna waxaa samaynaysaa ilmahaaga baraysaa, walaalahaaga baraysaa, dadka ku dhawa baraysaa, waa ku quudinaysaa, khayr fara badanaad helaysaa, waa guulaysanaysaa adduunya aakhiro. masha Allah. walaalayaal qaaliyaalow, qalbi uroonayaalow, walaashiin ismahan khaliif baro ama bar xikmadda ku dhaysa. baro oo bar xikmadda. waxaa walaal dadka kaa agdhow barataa ilmahaaga, walaalahaaga, waalidkaaga, dadka dhammaan kugu heerarsan, dariskaaga. qofka ku aragtid dad asaga oo qof caynaya waxaa dhahdaa ha cayn. waxaa ku caysid dadka aday ku ahaanaysaa. qof kasta waxaa ku caysid aday ku ahaanaysaa. waa xikmadaasaa baraysaa, waa ka celinaysaa. qofku waxaa leedahay walaal ka joog, dadka ilaahay daa. xikmad ma aha in dadka la caayo, ilaaha u qadara sidaas. masaakiimiinta kuma diglaynayno, ayagana allah ka soo saaro, anagana ilaahay naguma keeno wixii ku dhacay. saasaad uga qabanaysa, ka joog, dadka ilaahay daa aa leedahay soconaysaa. waxaa bartaa xikmadda dadka aad ku bartaa adiga oo ficil ahaan u sameynaysid. see ku bartaa? waxaa bartaa dadka in uu istustuska yahay wax xun. istustuska ayaa ka qabanaysaa ilmahaaga iyo nafsadaada kuu ka qabanaysaa. istustus ha sameynin. wax kasta oo istustus la dhaho waa garan kartaa, waa wax aad u sameynaysid calaa dad dartooda. dad ha kugu arkaan keliya iyo ha lagaasi sheego. haddeeba ficilkaaga galo ka noqo, shaygaas haba sameyninba. waxaa leedahay animaba sameynayaba. ama ilaahay dartiis kaa tahay kheyr, hadduu aha ilaahay dartiis amay kaa tahay kheyrkaas ilaahay dartiis amay kaa tahay. ilaahay dartiis haddee kaa tahay maasha Allah waa guulaysanaysaa. haddaa adduunyada dantaada iyo danaha ay ku raacanaysa weli waa guulaysanaysaa. waxaa darajada ugu saraysana waxaa waaya markaa wax walba ilaahay dartiisa loo sameynayo. walaal istustuska, wax kasta oo adoo istustus u sameynaysid haddaa samaysid ka har. waa wax xun, waa dulli, waa duloweysaa, ilaaha caasinaysaa. ilaahay ma jeclo qof kasta oo istustus ah. ka reeb dadka istustuska. markaa ku aragtay ilmahaaga asoo show sameynaya cunugaaga, markaa aragti kaale waxaasaa sameynaysa dhaqan fiican ma hooyo. laakiin hooyada saas dhihi kartaa waad hooyada garanaysa waa maxay istustus. iyadana istustuska iska tirtirtay ayaa ka celin karta ilmaheeda. kaa aragti kaale maxaa samaysa, maxaa ka wada showga, maxaa ugu jeesteynaysa dadka. ha sameyna hooyo, dadka ilaaha laguma jeesteeyo. hooyo dadka daa, ka reeb. xanta adana ka reebaysaa dadka. xanta farada badan maanta dhan laga hadlayo waaba caadiya noo tahay, waa iska cabnaa anaga. subxaan allah, ilaahan ka magan galna walaalayaal. allah na soo hadeeya anaga iyo dhan. xanta waa wax xun, ilaahay anaga soo hanuuniya dhammaanteenaba. waan fiicanaha nama dhahayna aniga idinkaba allah na wada hagaajiya. ilaahay noo weydiinaya. marka waa ilmahaaga bar xanta. waxaa kaloo ilmahaaga bartaa kibirka inuu wax xun yahay ayaa baraysaa ilmahaaga.
waxaad baraysaa qof kastoo kibraa inuu jabo. qof kastoo qof ku digleeyaa xikmad waaye. qof kastoo qof ku digleeyaa maalintiisaa lagu digleeyaa ilaa qof xikmad leh la digneynin. bar ilmahaaga inaan la digneynin, inaad dadka la yasinaad baraysaa. haddana ilmahaaga waxaad baraysaa inaad dadka la yasin. yasmada oo wax xun ah, qof la hoos marsiiyaa, qofna la sara marsiiyaa. ilmahaaga waxaa bartaa yasmada inay iska ilaaliyaan, macnaa qof inay hoos u dhigaan, qofna kor u qaadaan, wax xun inay taad baraysaa. hooyo dadka sin ayaad baraysaa, sin. waxaa kaloo xikmada ay ilmahaaga bartaa sinaanta, inay dadka u sinaadaan. dadka ilaahay ayaa leh, waa addooma alle, kuma kala xigaa. markaa banaanka subaxda dadka kaluntid inaad sintid. qofkii saaxiib gaar noqotay, haddaa qof saaxiib gaar la tahay, asagoo qof dulminaayo inaadan gacan ku siinin. ilmahaaga waad baraysaa. haddii kale ilmahaaga wuxuu noqonayaa qof hayraaca. qofkuu raacaba baraa, ma fahamte? qofkuu raacaba baro aa noqonaysaa. waxaa bartaa ilmahaaga oo kaleeto aa bartaa ilmahaaga bartaa in muxuu ahaa uu iska ilaaliyaa waxyaabaha ay kamid yihiin muxuu ahaa hayraacnimada. qofka wax dhahaayo inuu iska raaco, iska yeelo. qofka wuxuu ku dhaho ilmahaaga waxaa bartaa hooyo waxaa tahay qof shaqsi madax banaan oo xor ah, oo madax banaan. dadka haddaba ordinaa leedahay, dadka waxay ku dhahaan iska yeel ma aha. aqligaaga iyo maskaxdaada iyo qalbadaada ha isla shaqeeyaan. isku xirnow, adiga isku xirnow. connectionka jirkaaga ha isku xirnaado. laakiin hadduu kala xirnaado, madaxaagana keligiisa meel ku engego, qalbadaadana noqoto mid waxay rabta iska raacdo oo iska duleesho, qofku wuxuu noqonaya qof duleelo. waxaa bartaa ilmahaaga oo kaleeto inaan banaanka marka la maraayo aan si xun loo socon. si xun inaa banaanka loogu socon, oo kibir iyo show loo sameeya, oo dadka loo libisan. dad in la iska tiiriyaa bis in loo libistana inay xun tahay bar ilmahaaga. banaankana in loo baxaa show lasoo sameeyaa, dadka loo libistaa in la iska ilaaliyo. waxaa bartaa ilmahaaga qof jiro oo ilaahay soo dirsaday, oo muslim ah, oo magacaas leh, oo ilaahay ku xiran, oo qalbadiisa ruux binu aadan ah maamuli karin inuu yahay cunugaaga baraysaa. asagana asaga ahaado, iyadana iyada ahaato. walaalayaal, cashirka xikmada inta kuma dhamaanayo. iyadoo isku dardar ah oo jacbur ah ayaa halkan idinkaga soo diray. waa walaashiin ismahan khaliif cali, qalbi uroon oo idin leh walaalayaal aan daryeelno qoyska, hana lagu daryeelo xikmada in la baraa ilmaha xikmada hala baraa, halala socdo ilmaha, halala sheekaysto, waqti hala geliyo. ilmahaaga la sheekayso, waqti geli. maskaxdooda iyo fikirkooda fahan, heerkay nolosha ka marayaan fahan. walaalayaal, ballanteenu waa wanaag iyo xumaantoo la reebaa. walaashin ismahan khaliif cali iyo channelkeena ah toosinta garaadkii barashada xikmada. halkaas waxaa idinkugu soo gabagabeeyay qaybtii 2. baro oo bar xikmada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkaas ayaa idinkugu soo gabagabeeyay. waa fahamteena u maleyna.